doorashadii madaxweyne xasan garguurte waxaa sare u kacay dhulboobka iyo sidoo kale in shakhsiyaad famil ay yihiin ama ka tirsan qoyska madaxweynaha la siiyo dhulalka danta guud waxaan idin tusayaa muuqaallo aad la yaabtaan oo ku saabsan tani imaatinkii xasan sheekh xafiiska madaxweynenimada Soomaaliya dhulboobka ka socda Muqdisho waxaase intaasi sii dheer xataa meelaha la isku haystay inay ku jiraan masaajidda waxaase sidoo kale muuqaalkan aad ku daawan doontaan hooyooyin odayaal caruur oo dhammaan ka cabanaya dhulboobka saaxiibada iyo qoyska madaxweyne xasan garguurte waxaa laga yaabaa adiga adoo iska haysta gurigaaga iyo weliba sabarloogadii guriga ama sharcigii gurigaaga aad ku laheed oo ah mid saxan kadib inay ku yimaadaan qolo ku xiran saaxiibada xasan sheekh ama qoyska madaxweyne xasan garguurte dabadeedna loo sameeyo dukumentiyo been ah kuwaasi oo ciidanku dul keenaya dabadeedna kala wareegaya gurigaaga oo ku yaal Muqdisho waana waxa hadda dhacaya oo aadka u yaabka badan meelaha dhulalka laga burburiyay ama dadka lagu amray inay ka baxaan ma aha wax la soo koobi kara hal muuqaal oo kaliya waxaan eegaynaa marka hore oo aan ku tusayaa cabashada odayaal ku jufaa xasan sheekh oo ka hadlaya cidda boobaysa iyo dhulka laga boobayo haddii macallin mahdi iyo maxamed axmed diiri iyo abshir bukhaari oo xardheere ka yimid inay gobolka banaadir ku dulmiyaan dhulkayna waa difaacayna haddii dawladdii aan magansahaynay dhexdeeda nala ka dulmiyayo war dulmigan qabiilaysanay afartan nin oo ilma adeerta dawladda kale ayna dulmay in axmed diiri iyo macallin mahdi oo ilma adeer ah waxa waaye gobolka banaadir ka socda dadkan cabanaya ee aad u jeedaan ma aha daarood digri mirifle beesha shanaad iyo dir hase yeeshee waa hawiye kalena ma ahe waa qoladii uu ka dhashay madaxweyne xasan garguurte ee Afgaan hooyooyinkan ayaa cabanaya aadna u qeylinaya kadib markii ganacsato ku heeb ah jufada hoose xasan iyo saaxiibadii xasan soo dhistay oo ay ka mid yihiin xildhibaano baarlamaanka ka tirsan sida Saabir Shuuriye ganacsato xasan sheekh ka agdhow iyo marwooyinkiisa ayaa dhulkii ay ku ganacsanayeen lagu kiciyay waase xasan qaraabadiisa kuwaas oo ku mana sheeganaya xasan garguurte xilligii hotel Maa'ido oo ciidamada qaranka ay bursanayeen in qabiil ahaan haweenkan ay ku difaacayeen sida ay sheegayaan maantase dhulkii ay degnaayeen oo u dhacay xaaskiisa iyo kuwa ka mid ah ragga xasan sheekh lacagta siiyay xilliga kaambeenka doorashada uu ku jiray waa lacagta laaluushka ee la siiyay baarlamaanka Soomaaliya xasan sheekh oo madaal inuu nahandada ma ahanin haddii dad gooniya oo ina adeeroob ah madaxweyne u tahay noo sheeg in leeyahay madaala warqadan soo qolay kaas Itaaliya waa ka kacaysiin muddo la'aan inta qarash aan geliyo soonka bis Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu xisaabantaa qarashna ma gelin marqaati ay leedahay oo leeyahay naagtiisa lagaaga kiciha qamar iyo indhayar yaa madaxweyne waa qabi jirna Soomaaliya madaxweyne way soo qabatay madaxweyne naagtiisa ku dhinac urda iyo ilmihiisina wuligay ma arag xasan sheekh maqaayadii shalay markii uu farmaajo raacday badarka ciidankiisa ku cunayay oo loogu kaalmeeyay oo dhiguna dhaqaaqay inuu maanta usugu nagu soo weeraro ma filay 12 cabdi bila in qof dumar lagu soo weeraro ee anu kala hanahay nalantumo ee maalin ay bagal shacwadana seexmaysin leeyahay wallahi dambiga soo garay ma xala waa ku soo qarwo saqada dhexe waa ku qarwaay waxaana ugu qarwaa ilmaha ma bariiskoodii aan raadsaa mise hoygoodii aan raadiyaa waxaan xoolo qalayoon badarka shabiriga waa la daadshay wiilashi karaay waa lagu gubay wadaad masaakiina ilaa looga rida iyo qora afkiis lagu dhiftay aniga waa laygu istaagay gabadheedo umula oo qalan waa la dilay bustoolada madaxa looga garaacay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho dhowr goobood oo dad shacab ay degnaayeen ayaa qaab qasab ah lagaga kiciyay waxaana la siiyay familka madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale dad kaloo qaraabo la ah xasan garguurte iyo siyaasiyiin waxaase sidoo kale hadda sharciyo loo samaystay warshadii xeelo bariise oo ahaa ganacsado weyn kana soo jeedo beesha murusade isweydii haddii adiga reer Muqdisho aad ahayn dhulna aad ku leedahay Muqdisho mar haddii xeelo bariise la dhacayo dhulkiisa halkee ayaad adiga joogtaa waa og yahay mas'uulka gobolka Banaadir ku magacaaban Yuusuf Madaale iyo walaalkiis Yuusuf Kabaale waa og yihiin dhulka xeelo bariise inaysan qaadan karin sumcadda iska dilayaan magacay iska wasaqaynayaan dawladnimadana waa ceebaynaya ha ka leexdaano dawladnimada oo madaxweynuhu ugu weyn yahay
oo gudoomiyaha degmada oo dhulka ku yaala ugu hooseeya inta ka dhaxaysa waxa laga rabaa inay nidaamka ilaaliyaan haddaysan nidaamka ilaalin xoolaha dada iskale nin walbana nin uu naqana iyo reer ma rabna inaan meeshaas dhaafino dowladnimadu dadka ha ilaaliso hantidoodana ha u ilaaliso sharciyadana dadka ha lagu kala celiyo haddii intaa la waayo xoolaha dada iskale hayla bariisa hadduu dhinto wiilkiisa nool walaalkiisa nool ibraahim saalax ibraahim dadkiisa nool dhul dukumentiya oo damanyaala ah oo dawladii dhaxab bixisay oo shirkadii ugu horeyso isbuunyada gargaar ah Soomaaliya ah oo magaca caamka leh oo 38 la dhisay oo ilaa 91 shaqeynaysay oo diiratadii wadanka ku habsatay ay qaadatay warshada waxiil markii laga qax dhulkii soo haray maanta inay qaataan kuwii shalay qaatay ilmahooda inay qaataan maanta ka yeelimin oodweyne waxaa dadka lagu amray inay bixiyaan waa degmada hodane lacago lagu sharciyeeyo dhulka oo $2,000 ah waxaana loo sameynayaa sharciyo aan jirin oo bug ah ama feeg ah oo laga sameynayo dowladda hoose waxaase sharciyadaasi sameynaya duqa muqdisho oo saaxiib la ah madaxweyne xasan sheekh kharaabana ay yihiin marwada xasan zaara indhayar waxaase dadka laga qaadayaa lacaga aad u tiro badan raadeerka dukumentiyo tookadii hore xasan sheekh uu sameeyey iyo weliba kuwa kale oo kal hore la sameeyey dadkii haystay waxaa laga burburiyey dhulkii ay degnaayeen waxaana boobaya xubno wasiire ah iyo sidoo kale saaxiibada xasan garguurte marka hadday dawlad jirto oo cadaalad jirto waxa waaye waxaa dhibaatada loo geystay markii labaad loo geystay waxaa laga qabtay haddii laga qabanaynin waxa waaye nin waxaad qabsan karta qabsay saanaa jirta haddii cadaalad jirto dadkaan saan xoolaha dadkooda u burburiya nagala qabto hadday wax leeyihiin caddayn ay warqad haystaan ha la yimaado maxkamadda noo xukunta ayagaa dhahaya anaka ma arkin anaka ayagaa say nagu dhaheen waay mogtahay anaka ma arag hadday caddayn wataan ay warqaday dhulku leeyihiin wataan ha la yimaadeen haddaysan wadan ay wax ay wataan jirnay xoog wataanna ha nagala qabto saas soomaalida waxay ku maamaadaa qof wax caadadiisa ah qof kale ayay ceebtiisa tahay xasan garguurte waa caadadiisa boobka dhulka danta guud iyo weliba hantida dadweynaha waxaan eegi doonnaa dad maskiin ah oo ka soo jeeda beelaha soomaalida ay ku tirso beesha shanaad gaar ahaan madhibaan ama maxamed gargaarte ayaa dhulkooda la dhacayaa waxaana lagu dhacayaa qaab qabiil ah ayadoona la soo marayo saaxiibada xasan garguurte ninkii guriga iska lahaana waa la xiray farmaajo wayna soo deynaysa laakiin xasan sheekh markuu imaado waan la soo xiranaa marka khayr allah idin si waxa u baahanahay si xaq ah ninkaas banaanka in loo keeno hadalkan xasan sheekhna yaa dhiiq lugaha loo gonin asaa dhiijir dhiiqiyaan lugaha lagu gulin hadda waxay taanta dhiiqa lugaha lagu gulin dhiiqadan kala bax waxa ka codsanayna anaga waxaan ugu leeystaa qabiil anaga qabiil ma dhibaan nahay ma dhibaan waxa la yiraahdaa waa laga tira badan yahay qabiil aan ugu leeystaa waxaan ku iraadayo waxaan ka cabanaynaa madaxweynaha ma dhibaan birima boos ma yeelan karaan ugu leeystaa ma fahante banibaan birima boos ma yeelan kar ilaaha si ku shilin Soomaaliya aabiis ku gatay ilaaha marxuumkaas Allah u naxariisto wuu dhintay duleedyada muqdisho gaar ahaan dhanka ceelasha biyaha dhanka sidoo kale cisiley iyo duleedka degmada hilwaa duleedka yaaqshi dhammaan waxaa ka socda dhulboob aad u weyn iyo sameynta dukumentiyo been ah waxaase waxa hadda la diiwaangeliyey ka mid ah oo la arkay in saaxiibada madaxweynaha dadka agdhow iyo familkiisa ama qoyskiisa inay samaysanayaan dukumentiyo been abuur ah dowladda hoosena ay ka soo samaysanayaan taariikhdana laga bedelayo dabadeedna adoo gurigaaga iska jooga ayaa lagugu imaanayaa waxaana lagu dul keenayaa ciidan si qasab ayaa gurigaaga ay kala wareegayaan saaxiibada iyo qoyska madaxweynaha meelaha laisku haysto oo keliya ma aha dhulalka danta guud guryaha dadka ay leeyihiin xataa imaatinkii xasan sheekh kadib waxaa batay boobka iyo weliba kala dhaca beydka ilaahay waa masaajidada qaarkood waxaa la qorsheeyey in lagu bedelo hoteelo waxaase cabanaya dadkii masaajidada hayay oo laga boobayo masaajidadii ay ku cibaadaysanayeen waxaan dacwo ka nahay masaajidka ku yaalo xamar jajab oo magaciisa la dhahaayo sheekh xasan kalweyne masaajidkaasi oo la hayay 80 sano dadkii gacanta ku hayeen maanta waxaa loo dhiibay dad aan waxba ka ahaynin warqadaas wasaaradda wadata ala lajigeeda laga qaaday furaha imaamyadeeni maamuldeeni mashiiqiinteeni khadiibyadeeni waa la dulmiyey masaajidkaani muddo ku dhawaad 2 bilood gacanta ka maqan yahay dacwad wasaaradda awqaafta diinta in badan aan ku noqon xafiiskeeda marka dawladda Soomaaliya ugu sareeyay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud muuqaal
iyo warbixin kaliya laguma soo koobi karo dhulboobka ka socda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho imaantankii Xasan Garguurta kadib waxaan rajaynayaa in xulafada ama saaxiibada Xasan qoyskiisa iyo Xasan Garguurtaba in ummadda Soomaaliyeed Ilaahay uu ka dulqaado hore wuxuu damcay wixii wax boobay wixii wax cunay waqtigii doontaa aatay hanti umadeed cunay ama boobay cawaaqibtoodii baynu garanaynaa iyo waxay ku dambeeyeen waxaan soo gaaray in dad badan oo ganacsatada reer koonfureed la leeyahay waa lidinka ibniya dhulka waxaad ogaataan dhulkaas inay tahay dhul hantidayeeday ah xaaraan idinku tahay damiir xumo idinku tahay marka dadka waxaan u sheegaynaa oo dawladda u sheegaynaa dawladdu inay xil iska saarto hantida lagu kala maqan yahay waxaan u sheegaynaa fariintayadan ah in arrintaasi si sharci darro ah loo xalaaleysanayo anigoo ah mas-uulka deegaankanna mas-uulka u ah sida aan sheegayna reerkaa ka soo jeeda loo tuhmayo inay deegaanka u badan yihiin dhulkaasi ka jiro ee madaalena ka soo jeedo waxaan filayaa in dhawaaqani uu gaari doono